hay-adda Islamic Relief oo ma aragtay maanta ugu deeqday dhalinyaro tiradooda ay gaaraysa 50 dhalinyaro in ay siiyaan qarashkaas oo ma aragtay u isticmaali doonaan program oo ku xisaabsan nadaafadda magaalada oo lagu aruurinayo plastic ama caagta la isticmaalay bedelka magaalada lagu tuur lahaa waxaan rabnaa inaan mahad weyn u celino Islamic Relief ayagoo naga garab istaageen arintaas maxaa yeelay waxay naga caawinaysaa laba arrimood oo muhiim ah mid u horeyso waa nadaafadda magaalada saad ogtiin dad muslimiin ayaan nahnay nadaafadda diinteena aad iyo aad ay ugu hadashay waa wax ma aragtay sharciyan nagu waajib ah inaan ma aragtay ku noolaano meel nadiif ah oo ma aragtay clean ah mid kale barnaamijkan waxaad u faa'iideynaya dhalinyarada iska shaqalaanta ah waxaad ogtiin Kenya ama countiga shaqalaan fara badan ka jirta dadkii meel mishaar laga qaadana lama wada geyn kara marka barnaamijkan konton dhalinyaro ayaa ka faa'iideysa oo la siinaya lacag 400,000 dhalinyaro 400,000 ayaa la siinaya lacagtaas oo loogu talagalay in lagu bilaabo barnaamijkan ma aragtay plastic lagu aruurinaya ayagoo si iibinayeen soo waa iskaashata ahaan ama group ahaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala dhalinyarada inay ka faa'iidi doonaan taas oo ma aragtay uu kaaftoomayeen inay waqtigooda ku dhumiyaan maalayacniga ama daroogada iyo tahriibka iyo waxyaalaha ma aragtay foosho xun oo ayamahan dambe nagu soo kordhahaya soo barnaamijka shaqa abuurna waa yahay la dagaalanka maandooriyaasha iyo waxyaalaha la midka ayna waa yahay soo waxaan leenahay Islamic Relief waad mahadsantiin magacaygi waxa la dhahaa Shaakir Maxamed Saalax waxaan ka socdaa township area I am the vice chairman ya township eco friendly youth group maanta halkan waxaan isku imaanay project Islamic Relief ay wadatay waxa way enhancing plastic waste management ayaan maanta u fadhinay door bilood la soo dhaafina waan fadhinay waxa la fahansiinay arintii plastic faydada ay leedahay iyo khasaarada ay leedahay dibku keenayo plastic ayaan ka hadalnay macallimiin ayaan noo keenay horta Islamic Relief ay ku mahadsantahay arintaas ayna bartay maanta halkan waxaan u joognaa waxa la launch gareynayaa lacagtii lagu shaqo gali lahaa midaas ayadana anaga waan ku faraxsanahay because magaalada itakuwa na usafi plastic aan horta magaalada waa laga bixinayaa because plastic madhara yake ni mingi so ile kitu sisi tutakuwa tunafanya plastic aan magaalada ka aruurinayna environmentally friendly aan noqonayna magaalada way clean ay noqonaysaa effect ku keenaya plastic na unaga baryaraanaya anagana waan sii duwan gelinayna so that watu wengi waendelee kukota plastic kwa sababu plastic iko na madhara mingi na tunashukuru sana the media and the Islamic Relief magacaydu waa Abdi Aadan waxaan ka soo jeedaa locationka Hodan location chairmanka joint youth group maanta waxaan u maanay meeshan oo noo yeereen Islamic Relief oo gabagabadii project ay wadeen aad oo lacag nagu siisay 2 milyan oo kun ah Islamic Relief ayaan u mahadcelintaan u sameynayno waxa waaye dhalinta oo shaqo la'aan badan hayso magaaladii oo bilicdeeda halawday jaafu badan jiro dhusuq jiro ay u keentay caagta biyaha laga cabaaya iyo wasaqda la tuuray oo nooc walba meel walba la iskaga daadinaya haddaan nahay dhalinta wajeer aad iyo aad ay lacagta noo saacideynaysaa midda kale waxaa kaloo ayna bareen barnaamijkan Islamic Relief ay wado inay jirto plastigan caagta ah markii la tuuro dhibaatada keenayso oo kamid ah dhulka lagu tuuraya oo ka soo baxaysa toxic chemical ayaa jirta biyaha drainage oo dhusuqa naga qaadi lahaa inay xiraysaa waxyaalo bilicda magaalada haleynaysaa dadkina uma roono marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa Islamic Relief oo train noo siisay arrimahaas dhalintayna waa ka mid walba maalin walba ay baxayaan ay u jeedaan tahriib
kuwa kale waa kan magaalada cirbadley iska noqdeen marka moraal waxaan ka helahaynaa in oo hor aan u soconayna countiga kamaan helin dhaqaale noocaas hal mar oo dhalinyar oo intan leeg 50 cunug ah qalin ah hada ayaan u mahadcelinaa Islamic Relief xalida Xaliima Maxamed Bilow waxaan ka socdaa waa bari plastic collection aan ka socdaa Islamic Relief oo mahadcelinaynaa 2 milyan oo lacag aan la siiyay oo ku shaqaysanayno seen horumar ku gaari lahayn magaalada Wajeer oo plastic laga ururiyay nadaafada lacag waxaan la siiyay 2 milyan oo ku shaqaysanayna group kasta waxa la siiyay 400,000 waxaan ahayd 5 group aan ahayd waxaan ahayd 50 qof aan ahayd wadidaalina wax badan soo saarayna magaciid waa aadan axmed waxaan nahay warar misrata wagbari maanta meeshan waxaa nooga yeereen Islamic Relief xaflad oo ma aragtay dhalinyarta lagu caawina oo lacag ay ku shaqeystaan lagu siinaa ayaa nooga yeeray programkan waxaa looga tiragalay Islamic Relief ugu tiragaleen sanad soo socday sanad ayaa la waday dhalinyar ayaa laga soo xushay magaaladan wagbari barwaaqo hoodon iyo 2 location laga soo xulay waa dhalinyaro 50 ah marka waxaa looga tiragalay lacag in looga deeqo sidii ay ma aragtay ay caagaan ama plastigan magaalada ka bati oo wasaqada noqday sida ay wax haabiyaan oo ay u gataan maadaama Islamic Relief ay maanta noo yeertay aad aan ugu mahadcelinayna maxay yeelay dhalinyartii waxay u noqonaysaa shaqo abuur maxay yeelay darrad ama shalay waxaan arkay dhalinyarta hariibeen oo la bahdilahayo oo Libya iyo meel ay magafo ku haystaan mashruucan waxa uu noqon dhalinyarta in ay shaqo ka helaan oo ay faa'iido ka helaan magaaladan waxay ka helayaan nadaafad maxay la caag waa arkaysa saad magaalada u qabsaday nadaafad fiican ay ka helaysaa marka waa mashruuc laba geesood dhinacna waxa laga helaa shaqo oo dhalinyarta shaqo abuur ay u noqonay dhinacna magaalada waxa u noqonay nadaafad aad u wanaagsan aad u fiican magacay waxa la dhahaa Nuur Maxamed Cusmaan oo ka socda hay'adda Islamic Relief Kenya Wajeer maanta mashruuc meeshan waxa isku imaanay xaraka jarid lacag lagu bixin haya oo la siin haya dhalinyaro konton ah oo ka kala imaaday magaaladan location oo magaaladan ah oo ku jirto township ku jirto barwaaqo ku jirto hodan ku jirto wagbari kontonkaasayto magaaladanayto waxa ku batay jubbado badan ama plastica yaa ku batay marka shaqo abuur iyo hay'ad hagaajisay dhalinyarada shaqalaanta ah in shaqo loo abuuro oo lacag la siiyo marka konton shaqaale ah oo dhalinyaro ah yaa la siiyay lacag min 400,000 marka 2 milyan shilin halka ku bixinay dhalinyarada waxa looga baahan yahay wixii plastic oo magaaladan yaal in ay soo qaadaan ganacsi laga abuuro iyo ay sii iibiyaan ugu horeyntii county government-ga Wajeer yaa warshad lagu hagaajiyay plastigan yaa dhistay marka in ay meesha geeyana loogu targalay wali diyaar ma ay noqonin inta ay diyaar ka noqonina waxa ay geynayeen meel kale oo ama Nairobi ama magaalooyin kale way sii iibinayeen marka waxa looga baahan yahay magaaladan in la nadiifiyo ayagana shaqo abuur helaan oo lacag ay meesha ka soo saaraan looga baahan yahay